maanta oo taariikhdu tahay December 2023 waxaan halkan ku soo jeedinaynaa annagoo dhammaantay ka tirsan guddiga difaaca warmurtiyeed ku saabsan cunaqabataynta hubkii laga qaaday Soomaaliya. Guddiga difaaca ee golaha shacabku waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed guusha taariikhiga ay u soo hooyatay 32 sano kadib in cunaqabatayntii hubka laga qaado Soomaaliya. waxay ammaanayaan juhdiga madaxweynaha iyo xukuumaddu ay geliyeen kamira dhalinta rukunnadii ugu waaweynaa ee dib u yegleelidda dawlad dhiska, xoreynta dalka, hanashada amniga iyo soo celinta karaamadii iyo sharafkii Soomaaliyeed. waxaan u mahad celinaynaa haddaan guddinahay golaha ammaanka oo ku dhiiraday in Soomaaliya maanta istaahisho in xayiraadda hubka laga qaado. cadowga Soomaaliyeed waxaan leenahay maanta waa maalin taariikhi ah biidmillaah haraagiinana waa la hurgufi doonaa. guddiga oo garab taagan ciidanka xoogga dalka dareensanna ahmiyadda qaadidda xayiraaddu u leedahay ciidankeenna waxaan si dhow ula socon doonaa hufnaanta shaqo, isticmaalka hubka iyo ilaalinta inaan hubku gelin gacan khaldan oo ka baxsan nidaamka dawliga ixtiraamaana iyo hoggaansanaanta shuruucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee lagu dhaqo hubka noocyadiisa kala duwan. wabillahi tawfiiq.